dhirbaaxada sokeeyey iyagu moodayaan dheefa dhowdooda qaraxyadu shacbiga way dhantaaleen dhankiisii shabaabay cilmiga waa ka dheertiine halkuu malab dhadhami jiray dhanaan baa tufaysaane dhibaatada sokeeyaa darajaa ka dhigataane dhabannadan gacmaa saaray waar iyo dhafoorkiiye waa dhaygagiyo yaab ahay dhegola'aantoodu dhabarkay ka jabiyeen bulshada dhowri maayaane الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم walaalyaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. maanta waxaan soo gudbinayaa qeybta labaad ee silsilada aan ku radinaya shubahaadka maafiyada al-shabaab iyo culimmadooda oo ay ku gaalaysiiyaan dowladda Soomaaliya iyo dowladaha ka jiraan caalamka islaamka. qeybta koowaad waxaan ka hadalnay tafsiirka aayadda waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika humul kaafiruun. waxaan ku cadaynay inaysan diinkabax ahayn in dastuur ama xukum ka duwan kan ilaahay lagu dhaqmo ilaa hadduu xaakimka xukumka ilaahay inkiray ama uu sheegay in xukumkiisa uu xagga ilaahay ka imaaday ama uu dhaho in xukumkiisa uu ka wanaagsan yahay kan ilaahay uu soo dejiyey. haddaba maanta waxaan radinayaa mid ka mid ah shubahaadka maafiyada ay ku gaalaysiiso dowladda Soomaaliya iyo weliba dowladaha ka jiraan wadamada islaamka. shubahadaas waa sheegashadooda in culimada ay gaalaysiiyeen tataarka, gaar ahaan imaam ibn Taymiya, ku dhaqanka dastuurkooda alyaasa ama alyaasaq la dhihi jiray dartiisa. tataar waxay ahaayeen markoodii hore ummad gaalo ah oo mushrikiin ah oo qarniga 7 ee hijriga qabsatay qayb weyn oo caalamka. hogaamiyahooda ugu weyn wuxuu ahaa ninka Genghis Khan la oran jiray. asaga u dejiyay dastuurkooda alyaasa. wuxuu dhintay sanadka 624 hijriga. dhimashadiisa kadib wiilashiisa ayaa sii waday dagaalka ay ku qabsan lahaayeen dunida. waa nimanka gumaystay qayb weyn ee caalamka islaamka ka mid ah ilaa ay qabsadeen caasimada khaliifada cabbaasiyiinta ee Baghdad, kuna dilay khaliifka al-musta'sim billah sanadka 656 hijriga. ninka hogaaminaya ciidanka tataar markay galeen Baghdad waa Hulaku. ninkan waxaa dhalay wiilasha Genghis Khan ka mid ah, macnaha Genghis Khan awowahiisa uu ahaa. laakiin tataar wada mushrikiin ma ahayn. qaar ayaa islaamka galay, kuwaas waxaa ka mid ah Barakat Khan oo ah nin Hulaku ay ilma adeer yihiin. Barakat Khan wuxuu hogaaminaya qabiil aad u weyn ee qabaa'ilka tataar ka mid ah ee la dhihi jiray al-qabiilatu al-dhahabiyya. ninkan iyo qabiilkiis waxay deganaayeen Quqaaz oo hadda loo yaqaana Shiishaan iyo wadamo daris la ah iyo qayb ka mid ah Ruusiya. Barakat Khan markuu islaamay kadib wuxuu bay'adiisa u diray khaliifka al-musta'sim billah waa intuusan Hulaku qabsanin Baghdad. markuu ogaaday in tataarka ay qorsheynayaan inay ku duulaan Baghdad, wuu ka soo horjeestay arrintaas. qabsashada Baghdad kadib wuxuu la saftay dowladda Mamaaliigta Misr iyo Sham ka talin jireen ee hogaaminayay sultaanka Zaahir Berberis. ibn Kathir wuxuu leeyahay وفيها قدمت رسل بركة خان إلى ظاهر يقول له قد علمت محبتي للإسلام وعلمت ما فعل هولاك بالمسلمين فاركب أنت من ناحية حتى آتيه أنا من ناحية حتى نستلمه أو نخرجه من البلاد وأعطيك جميع ما كان بيده من البلاد. فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على رسله وأكرمهم. سنة 661 هجرية Barakat Khan wuxuu u diray sultaan Zaahir ergeygiisa isagoo leh waad ogaatay jacaylka aan islaamka u qaba, waadna ogaatay wuxuu Hulaku muslimiinta ku sameeyey. adiga dhinac ka imo, anigana dhinac kale ayaan ka imaanaya ilaa aan ka saarno dalka. waxaana ku siinaya dhul kasta uu gacanta ku hayay.
sultaanka daahir dalabkaas uu ogolaaday waxayna sameeyeen isbahaysi ka dhan ah hulaako. ibn kathiir wuxuu leeyahay وفيها التقى بركة خان وهولاكو ومع كل واحد جيوش كثيرة فاقتتلوا فهزم الله هولاكو هزيمة فظيعة وقتل أكثر أصحابه وغرق أكثر من بقي وهرب هو في شرذمة يسيرة ولله الحمد. sanadkan waxaa dagaal ku kulmay barakad khan iyo hulaako. ilaahina wuxuu jebiyey hulaako, inta badan ciidankiisa waa la dilay. hulaako iyo koox yar ayaa badbaaday. ilaahay baa ku mahadsan. marka way caddahay in barakad khan safka muslimiinta uu ku jiray. dhowr jeer ayuu jebiyey ciidanka hulaako iyo wiilkiisa kadib markuu hulaako bakhtiyey. barakad khan wuxuu dhintay sanadka 665 hijriga asoo duulan ku ah wiilka hulaako iyo ciidankiisa. ilaahay ha u naxariisto. marka walaalayaal, sidaad aragteen barakad khan boqor muslim buu ahaa. isaga dartiisa dad badan oo qabiilkiisa ka mid ah ayaa islaamay. ciidankiisana muslimiin ayaa u badnaa oo tataar ah, inkastoo tataar mushrikiin ah ay ka mid ahaayeen ciidankiisa iyo qabiilka uu hogaaminayay. culamada taariikhda ee muslimiinta waxay barakad khan ku tilmaameen nin geesi ah oo deeqtoon oo caadil ah. saasay tahay barakad khan shareecada islaamka ma ku dhaqmi jirin. wuxuu ku dhaqmi jiray dastuurka jinkis khan awowahiisa alyaasa. qof culamada islaamka ka mid ah oo sheegay inuu murtad ahaa ku dhaqanka dastuur gaaleed dartiisa lama hayo. qof culamada islaamka ka mid ah oo fatwooday in isbahaysiga mamaaligta iyo barakad khan uusan shareecada waafaqsaneen sababtoo ah dastuurka jinkis khan uu ku dhaqmayay lama hayo. sanadka 694 hijriga oo ah 38 sano qabsashada bagdaad kadib, ilaahay wuxuu qadaray in boqorka tataarka qaazaan uu islaamka galo. isaga ka hor waxaa islaamay wasiirkiisa koowaad nowruus. isagaana sabab u noqday inuu islaamo qaazaan boqorka tataarka. haddaba aan eegno culamada markhaatiga ka ahaa taariikhda tataar waxay ka yidhaahdeen islaamnimada hogaanka tataarka. may gaalaysiiyeen mise islaamnimadooda ay sugeen? ibn kathiir wuxuu leeyahay وكان نوروز هذا من خيار أمراء التتر عند قازان، وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه وأذكاره وتطوعاته وقصده الجيد رحمه الله وعفى عنه. ابن كثير وحو نوروز كتل مامي قف عباد له رنعها إسلام نمذيسة كذب إلهي وحو كتل بدي إنه أنحرستو. الذهبي وحو يري وفشل الإسلام في جيشه بحرص النوروز فإنه كان مسلما خيرا صحيح الإسلام. الذهبي وحو يري إسلام نمذيسة مدصح أي أهد. ابن تيمية وحو يري ولهذا كانوا أي رافضة من أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله الشهيد الذي دعا ملك المغول غازان إلى الإسلام. ابن تيمية وحو sheegay inuu ahaa nowruus qof mujaahid ah, ilaahay jidkiisa u dagaalama, wuxuuna ku tilmaamay shahiid. su-aasha waxay tahay, ninkan waa ra-iisul wasaaraha boqorka tataar. markuu islaamay shaqadiisa uu sii watay ilaa uu ka islaamay boqorkiisa. dastuurka tataarka uu ku dhaqmi jiray isagoo gaal ah iyo markuu islaamay kadibba. saas ay tahay, culamada ma gaalaysiinin, islaamnimadiisa way sugeen, xataa shahiid ay ku tilmaameen. ma murtad ah shahiid noqona? maafiyada iyo culama ku sheegoodana wasiirada dowladda oo dhan way gaalaysiiyaan. laa xawla walaa quwata ilaa billah. ilaahay baan ka magan gelaynaa jahliga iyo xagjirnimada. الذهبي وحليه ثم بعد الصلاة وصل إلى ظاهر المدينة جماعة من التتار معهم الملك إسماعيل قرابة قازان، إلى أن قال: وجعل نائب البلد الملك إسماعيل وجلس بالقيمورية
وكان فيه عقل وإسلام وقلة الشر في الجملة. الذهبي وحو يري إن أميركا تتارك إسماعيل وقازان كدقي قدوميها دمشق وأها نين مسلم أيضا لا أقيه إن قدق معيه دستورك الياسا. ابن كثير وحو لا يهي وفي جماد الآخرة خرب ملك التتار أبو سعيد البازار وزوج الخواطئ وأراق الخمور وعاقب على ذلك أشد العقوبة وفرح المسلمون بذلك ودعوا له رحمه الله وسامحه. هل كان ابن كثير وحو نحريست إلهي وقوي دي بقر كتتار أبو سعيد تاسع معناه هذا ايته إن مسلم أها أكتيسا دعاء ذاس قف عن مسلم أهين لوغما دعايو هدبا أن أغنو حالة قازان ولماذا ما قف مسلم أو هستان مثل قف مرتد. ابن كثير وحلايه هذا وسلطان التتار قد قصد دمشق بعد الوقع فاجتمع أعيان البلد وشيخ تقي الدين ابن تيمية في مشهد علي واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق. تارك مركز دمشق سوق جلين وحجرت كذا علماء ذا وكمد أها ابن تيمية أيا قازان أتجي سي نبت جليو وقعدان رير دمشق تاسنا وحي أهد سنة لحبقول سغاشن يسغال هجرية مركو قازان إسلامي كدب شريعة ما قبطو إن مرتد أهل سيو أما لغا قادو مغان كليو يبالان سيدي ابن تيمية عدي وحو يري فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا توكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على ردة باتفاق. نبذل أن وحال قاذا قالوا أسلئة يوم مسلمين marka in culimada ay boqorka tataar ka talbadeen amaanka waxay daliil kale u tahay inuu muslim ahaa maadaama uusan gaal asli ahayn waqtigaas iska badaaf inay amaan ka talbadeen wayba u duceeyeen. ibn kathiir wuxuu yiri thumma inna qazan talaba minhu ad-du'a faqala fi du'aihi اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه البلد والعباد. وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فأخذ له وزلزله ودمره واقطع دابره. قال وقازان يؤمن على دعائه يرفع يديه. ابن تيمية وحو إلهي ويديه هدو قازان أما محمود مجعيسى إسلام كأه إلهي درتيس أدقالمايا إنو أقرقارو هدوسي أدقالمايا الدنيا إيو استستس إيو دولينتا مسلمينتا إنو هلاغو قف آد أكتهي إنو مرتد يهي أو دينتا كبحي ما بنانا إن دعو نوعانا لو دعيو ما صورت قلبا إن قف مرتد وإلهي درتيس أدقالمو ومايا taas waxay tusaysaa in ibn taymiya uu qaazaan u arkayay qof muslim laakiin dulmi badan maadaama uu muslimiinta reer shaam weerari jiray. waxaan ku gabagabeynayaa ani fatwadan ibn taymiya uu ku cadeeyay inuusan gaalaysiinaynin qof qaanuun ama dastuur ku xukumo. wuxuu yiri wasu'ila rahimahullahu ta'ala عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول هذا شرع البندق وهو ناظر على مدرسة وفقهاء فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذي يذكره تسقط عدالته من النذر أم لا؟ وهل يجب على حاكم المسلمين الذي يثبت عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث بشرع البندق الذي لا يشرعه الله ولا رسوله أن يعزله من النذر أم لا؟ ابن تيمية وحال ويديه قف مسؤول كأه وقف أو شرعك فلارتورك كو حكمه
sharcigaasna uusan ahayn sharci uu ilaahay iyo rasuulkiisa dejiyaan. qofkaas cadaaladiisa ma dhacaysa, shaqadaas ma laga qaadi karaa? fa ajaaba alxamdu lilah laysa liaxadin an yaxkuma bayna axadin min khalqi illah laa bayna almuslimiina wala alkufaar wala alfityaan wala rumaati lbunduq wala aljeish wala alfuqaraa wala gayri dalik ila bixukmi illahi warasuulihi waman ibtaqa gayra dalika tanaawalahu qowluhu tacaala afaxukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ووجب أن يمنع من النظر في الوقف. jawaabtiis waxaa ka mid ahaa qofka ku xukumo sharciga fallaartuurka iyo sharci kaleba oo khilaafsan sharciga ilaahay iyo rasuulkiisa isagoo og wuxuu la mid yahay tataarka alyaasaq ku xukumayeen. qofka arintaas u bareeray wuxuu duray cadaaladiisa iyo diintiisa. duritaankaas magaalnimo uu ka wada mise dambi? waa dambi sida uu ku cadeeyey meelo kale. وسئل رحمه الله عن رجل عدل له جارية اعترف بوضعها بحضرة عدول وأنها حبلت منه وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل وأنه ضرب الجارية ضربا مبرحا على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك. وحال ويدي قف أدونتيس أركاد سوري ذي فأجاب الحمد لله إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين إلى أن قال وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك وذلك مما يقدح في دينه وعدالته. وحكو جوابي أوركا إن لسوريدو وحرام هدو كس أسوريدو وإن ننكاس لعقاب arintaasna waxay duraysaa diintiisa iyo cadaaladiisa. meel kale wuxuu ku yiri ibn taymiya waman asara calaa sarfi maalin ligayri mustaxiqihi wamanaca almustaxiqa qudixa fi diinihi wa cadaalatihi. qofka ku adkaystay inuu hanti waqaf ah siiyo dad aan mutaysnayn oo ka diido dadka xaqa u leh waxaa la durayaa diintiisa iyo cadaaladiisa. nimankan waxay ku dhaceen waxyaabo dambi ah oo aan gaalnimo ahayn. taas waxay tusaysaa in durida diinta iyo cadaalada macnaheedu ma ahan inuu diinta ka baxay. marka ninka shareecada fallaartuurka ku xukumay iyo tataarka alyaasaq ku xukumeen diinta kagama bixin, laakiin dambi ay galeen. dambigooda iyo kan ninka uurka soo riday iyo kan waqafka ku tagrifalay kabaa'irta ay ka mid yihiin. dambina in muslim lagu gaalaysiiyo waa manhajka khawaarijta. waxaana cadeeyey in culamada noolaa xilliga tataarka aysan maamulka tataarka gaalaysiinin iyadoo la og yahay in weligooda shareecada islaamka aysan ku dhaqmin. taas beddelkeeda waxay ku dhaqmi jireen dastuur uu nin gaal ah qoray. taas waxay daliil u tahay in culamada maafiyada al-shabaab ay lunsan yihiin oo ay khilaafsan yihiin culamada islaamka. qaybta ku xigta waxaan idin sharxaya insha allah inuusan ibn taymiya fataawadiisa tataarka ku gaalaysiinin, laakiin dad aan manhajkiisa fahamsaneen ayaa si khalad uga fahmeen inuu gaalaysiiyey tataarka ku dhaqanka dastuurka alyaasa dartiisa. ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu xaqa noo waafajiyo, inuu muslimiinta xaqa u tuso si ay uga tagaan maafiyada al-shabaab iyo jamaacadka jihaad ku sheega ah.
silsiladan baraha bulshada ku faafiya wiilal aad taqaanaan inay maafiyada ku jiraan maqashiya. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ku hanuuniyo dhalinyarada la maran habaabiye. ilaa kulan dambe insha allah. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. walaalkiina Zubayr Almuhaajir.